12 Agosto sanad ka hor ayaan isu nimid aniga iyo qaar idin kamida maalinta iyada ah waxaan u dabaal degnay dhalinyaradii ficiina ahayd ee sababtay inaan caawa halkan joogno sababtoo ah iyaga dhaliyay qarannimada Soomaaliyeed maalinta iyada ah waxaan u dabaal degnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku noolaa wacyigiina ka dhib badan oo haystay dhaqaale idinka yar oo aan lahayn xorriyad oo ku jira gumaysi oo markay albaabku soo baxaan khatartooda ay ahayd inuu dilo qof ajnabi ah laakiin waxay goosteen waqtiga iyada ah inay naftooda ku bixiyaan si idinku aad u heshaan nolol ka fiicantii ay ku jiraan maalinta iyada waxaa joogtay dhalinyaro u dagaalamaysay jiritaankooda iyo jiritaanka kuwa ka dambeeya taariikhdii iyada ahayd oo ay sameeyeen ayaan isugu nimaadnaa 12 Agosto iyo mar walba oo la dabaal dego SYL oo halkan isugu nimaadnaa oo meel kale mar walba oo laga sheekeeyo taariikhda dunida waxay astaan u tahay dhalinyaro ama ha ahaadaano dhalinyaro Soomaaliyeed ama ha ahaadaano dhalinyarada maanta dunida u dabaal degaysa kuwaas waa kuwa aan abaal u hayno weligoodna aan qirayno inay yihiin kuwa noo ogolaaday inaan u noolaano sidaan u noolnahay kuwaas oo aan ku xisaabtamayno wixii ay noo dhiibeen meeshii aan geynay markaan is xisaabinayno ay tahay qayb kamid ah isla xisaabtanka aan ugu yeero isla xisaabtanka damiireed oo qofku uu leeyahay kuwaasi waa kuwa caawa halkan aan isugu nimid inaan u dabaal degno halkan waxaa kaloon caawa u joognaa inaan u dabaal degno kuwa kale oo aad idinku ugu horeysaan kuwaas waxay la dagaalamayeen gumaysi ilaahay ha u naxariistee way ku guuleysteen inay gumaysigii dalkeena ka xoreeyaan waxay ku guuleysteen iyadoo Afrika inteeda kale aanay ku dhiiran waxay ku guuleysteen iyadoo Afrika intooda kale aanay hurdada ka kacin waxay sababeen in dunidu iyo kuwiina gumaysanayay ay qoriyuhu ku filnaa waayaan ay waqtiga gaareen in Afrika aan noqono dalkii ugu horeeyay diyaarado la soo aadaan waxa keenay kuwa idinka daadiina oo kale halkan waxaan u dabaal degaynaa dhalinyaro kale waan la dagaalamayn gumaysi laakiin la dagaalamaya dagaal kale oo badan dagaal kula jira dhibaatooyin kale oo ay ugu horeeyaan jahli dhibaatooyin ku salaysan faqri iyo gaajo dhibaatooyin la xiriira argagixiso iyo qabyaalad dhibaatooyin la xiriira musuqmaasuq iyo dangaara dhibaatooyin la xiriira in la iska celiyo kuwa diyaar u ah dalkeena inay iibiyaan kuwii dalkeena xoreeyay iyo kuwa caawa halkan aan ugu dabaal degayno waxay ahaayeen dhalinyaro kala duwan ku kala nool 2 qarni wajahay 2 dhibaato oo kala duwan laakiin waxay ka midaysan yihiin labada gruuba ama labada dhalinyaraba waa rajada kaliya ay markaas lahaayeen ummadda Soomaaliyeed haddana rajada kaliya ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed sidaas daraadeed waxaan leeyahay caawa waxaan halkaan hambalyo uga diraynaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan leenahay maalintan iyada ah oo lagu asteeyay dhalinyaranimada waxaan leenahay meel walba aad ka joogtiin dalka Soomaaliyeed iyo dibaddaba
haddii aad uu kugu jiro dhiig Soomaaliyeed hambalyo. waayo dhalinyaradu waa waqtigii xoogga, waa waqtigii caqliga caafimaadka, waa waqtigii qarannimadu uu qofku ka jeclaa wax walba, waa waqtigii qofku wax soo saari lahaa, waa waqtigii qof walba uu hamigiisa geyn lahaa meel sare si uu u hiigsado baalkii taariikhda looga qori lahaa mustaqbalka. dhalinyaronimadu waa waqtigii aad yeelan lahayd raasumaal qarannimo iyo qofeed. sanad ka hor waxaan inkala hadlay inaan ka shaqaynayno inaan dalka dib u dhisno, kobcinno dhaqaalaha. sanad ka hor waxaan idinkala hadlay inaan laga shaqayn karin haddii aadan idinku ka shaqaynina. sanad ka hor waxaan idin sheegay inaan u jeedo iftiin aan rabo inaad iila jeedaan. sanad ka hor markii dad badan oo Soomaaliyeed ay fahmi waayeen inay ila arkaan iftiinkaas, waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad idinku ila fahamteen. shalayto waxaan daafurnay wax la yiraahdo golaha dhaqaalaha qaranka. sanad ka hor ayaan idin sheegay inaan amniga la sugi karin kaligiis, inaan siyaasad loo dhan yahay laga shaqayn karin, inaan dalka dib loo dhisi karin, inaan la soo saari karin bulsho caafimaad qabta, inaan la heli karin bulsho wax baratay haddii aan dhaqaalaha wax laga qaban. waxaan shalay u daafurnay golaha dhaqaalaha qaranka ay ku jiraan dad Soomaaliyeed iyo dad aan Soomaali ahayn oo mid walba uu PhD haysto. sababtoo ah waxaan soo gaarnay iftiinka aan idin sheegayay, laakiin waxay u baahatay aqoon ka badan mid anagu aan leenahay. sababtoo ah waxaan aqbalnay inaan si sax u qaadano daawada naloo qoray. sababtoo ah waxaan aqbalnay inaanan qarin cudurka aan qabno. waxaan aqbalnay inaanan yeelayn dalkan in musuqmaasuq lagu dhaqmo. waxaan rabaa caawa marka inaan halkan uga diro fariin qof walba oo Soomaaliyeed ama wasiir ahaw ama cid kale ahaw oo xil u haya dawladda Soomaaliyeed oo ku fikiraya inaad ku takrifasho xoolaha ummadda oo ka shaqaynaya inaad musuqmaasuqdo. waxaan kuu sheegayaa inaadan calfanayn. ha isku xadin, ha isku dhicin, waa lagaa daba imaanayaa, waana lagu soo xirayaa. waa la dhaafay waqtigii musuqmaasuqa iyo tuugada, waa la dhaafay waqtigii lagu takrifali jiray xoolaha ummadda Soomaaliyeed. sanad ka hor waxaan idin ballan qaaday in la shaqaalaysiiyo 1,000 dhalinyaro ah. waxaan rajaynayaa in qaar idinka mid ay ka faa'iideysteen. sanadkaana waxaan leeyahay guddoomiye Yariisow ka qaba araajida 1,000 kale oo Soomaaliyeed oo la shaqaalaysiiyo kuwada xisaabtan. waxaan leenahay injineer Yariisow oo ah duqa magaalada Muqdisho, guddoomiyaha gobolka Banaadir, waa inaad si cadaalad ah uga qabataa 1,000 qofood oo Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho, rag iyo dumar. idinkana waxaan idin leeyahay kula xisaabtama kana faa'iideysta. sidoo kale waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo degan dawlad goboleedyada hoos yimaada dawladda federaalka, sidaas oo kale ayaa idinkana la idinku keenayaa. shaqaalaha la idin shaqaalaysiinayo, dhaqaalaha lagu bixiyo magaalada ayaa idinkana la idinku bixinayo. sanad kadib waxaan aaminsanahay in dareen qarannimo uu dhashay. sanad kadib waxaan aaminsanahay in hamigii iyo qabkii ummadda Soomaaliyeed uu dib u curtay.
sanadii xoogaa kadib waxaan aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed aanay mar dambe aqbali doonin in la liido caawa waxaan ku faraxsanahay laakiin in shaqadii qarankaan u haynay ay miro dhashay sababtoo ah halkan waxaa soo istaagay gabar la yiraahdo Muuno iyo wiil la yiraahdo Lafoole fariinta halkan ay ka gudbiyeen ayaa xambaarsan qarannimada iyo deernimada waxaan isweydiinaynaa marka meesha hadda aan soo gaarnay oo aasaaska xageen rabnaa inaan ka aadno dal noocee ah ayaan rabnaa inaan dhisno dawlad noocee ah ayaan rabnaa inaan yeelano sharaf iyo karaamo noocee ah ayaan rabnaa inaan yeelano waxaan ku jirnaa qarnigii 21aad ma yeelan karno dhaqan ku salaysan qarnigii 20aad waxaa la rabaa marka dhalinyaro in ra'iisul wasaarihiinu halkan soo istaago uu yiraahdo dhalinyaraan shaqaalaysiinayna ma aha hamiga aan leenahay hamiga aan leenahay waxa uu yahay dalkan isaga leh khayraad ku filan khayraadka si aan uga faa'iideysano annaga hor taagnayn ku dhawaad 30 sano su'aasha aan idin qabo waxay tahay diyaar ma u tihiin inaan ka wareejino isbaarada mise diyaar uma ahdina diyaar ma u tihiin dowladnimada inaan ka hor wareejino isbaarada waxaan idin sheegayaa si aan dunida ula tartanno waa inaan leenahay iskuullo iyo jaamacado ku astaysan qarniga 21aad waa inaan leenahay macallimiin iyo maamulayaal aqoontooda ay u dhiganto ama ka sarreyso dalalka dunida intooda kale waa inaan leenahay isbitaallo iyo iskuullo iyo jidad iyo buundooyin dunida u soo jeediya dalka Soomaaliya waa inaan leenahay shuruuc kala hagta dalka iyo kuwa raba dalkeena inay yimaadaan oo ay maalgashadaan waa inaan leenahay mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin shaqadooda ay tahay inay shacabka u adeegaan oo aanay ahayn inay iyagu shacabka ka adeegtaan kuma socon karno dariiq hore oo ma sugi karno inaan soo saarno wixii hore wax ka duwan kuma shaqayn karno qabyaalad oo ma dhisi karno dalka aan sheegayno ma aqbali karno musuqmaasuqa oo ma dhisi karno dalka aan sheegayno ma yeeli karno in qofkii musuqmaasuq loo soo xiro walaalkiis ama adeerkiis oo xildhibaan iyo wasiir ay ka daba yimaadaan ay yiraahdaan hala soo daayo wiilka ayada lafteeda musuqmaasuq kala ma yeeli karno xamar ku dhawaad 3 milyan oo qof inay ku nooshahay dhowr wiil oo shabaabana inay shacabkeena nolosha u diidaan haddii degmo walba ay sabaabisho dhalinyarada ay hurdada ka kacdo aad iska daysaan caawa maxaad ku casheynaysaan inaad ka fikirtaan oo u fikirtaan qarniga 22 Soomaaliya xagee bay joogaysaa oo u fikirtaan geedka maanta anigu aan beero 100 sano kadib ayaa la harsan doonaa ma arki doona anigu waxa arki doona caruurteeda iyo kuwa ay sii dhaleen sida kuwii xorriyadda soo dhaliyay aan caawa geedii ay beereen u harsaneen dowladnimadu waa qof walba oo aqbashay iyadu inay marka hore isla xisaabtanto waxa la isku haysto ma ahan bil Soomaaliya maxaa laga yiri waxa la isku haysto ma aha xildhibaankeedu codeynaysa waxa la isku haysto waa mustaqbalkaada waa sidaad u noolaa lahayd waa dhaxalka caruurtaada aad uga tagi lahayd waa sharaftaadu sida ay ahaan lahayd waa raasumaalkaadu waxa uu noqon lahaa